stresska marka aad maqasho markiiba maskaxdaada waxaa kusoo degdegaya inuu dhammaantiis yahay wax xun, balse waxaa jira stress wanaagsan iyo stress xun. taasoo macnaheedu tahay inuu stresska wanaagsan kuu keenayo natiijo wanaagsan, halka stresska xunna natiijo xun uu kuu keenayo. muuqaalkan ayaan doonaynaa inaan ku faahfaahino. soo dhawaada. stresska guud ahaan marka laga hadlayo waxaa la yiraahdaa qofka khalkhal nafsi ayaa uu la kulmayaa iyo cadaadis uu dareemayo. cadaadiskaas markaa wuxuu u kala qaybsamayaa inuu qofkii yahay mid good stress ah ama natiijo wanaagsan u keeni doona. good stresska macnaheedu waxa waaye qofka wuxuu markuu stresskaas u yimaado uu arko waxa uu ka shaqeynayaa ama uu u noqonayaa dhiirigeliyo wanaagsan, sidaas ayuu natiijo wanaagsan ku keenayaa, wax fiicanna ku imaan karaan. Mathalan, qofka leyrka aan ifsana sameeyay wuxuu ka cararayay oo stress ku hayay mugdigii, sidaas ayuu wuxuu isku dayay inuu keeno leyrkii markaas wuxuu helay natiijadii wanaagsaneed. hadduu uusan stresskaas u imaan lahayn waxaa la yiraahdaa macnaha qofka kamuusan shaqeeyin wax wanaagsan. qof kastoo naga mid ah diyaaradan hadda adduunka lagu shaqeynayo, dadkii ka shaqeeyay oo injineerada ahaa stresskaas ayay ku shaqeynayeen si uu helaan wax lagu socdaali karo si dhaqso leh, adduunka lagu gaari karo waqti kooban. tareenka, wadooyinka la dhisay, kulli wax walba oo wanaagsan oo la qabtay stress ayaa lagu shaqeynayay. stresskaasna wuxuu ahaa good stress. haddii aad rabto inaad lacag fiican hesho waa inaad cadaadis ku shaqeysaa in aad shaqo fiican qabato, markaasna natiijada ay noqoto mid adiga ku anfacda iyo dadkaba anfici karta. sidoo kale haddii aad arday tahay jaamacad ama imtixaan aad iskuul u fadhiisanaysid waxaa helaysaa good stresskaas haddaa ka faa'iidaysta natiijo fiican ayaa keeni kartaa, imtixaankana waa ku baasi kartaa. haddaba stresska waxaa la yidhahdaa waqti kooban ayuu jiraa, maaha mid qofka dhibaato u keenaya oo muudkiisa khalkhal badan kusii jiraya waqti dheer. waqti kooban waaye, qofkana natiijada markuu helo farxad ayaa uga dambeysa. dhinaca kale bad stresska ama stresska xun waxaa weeye qofka wuxuu gelayaa xaalad khalkhal ah nafsi ah oo uu qofka la kulmayo caafimaadkiisa dhibaato uu kala kulmayo. waxaa ku dhacaya khalkhal, waxaa kaloo ku dhacaya cabsi badan oo qofka la kulmi doono, iyo concentrationka oo ku xumaan doona ama diirad saarka oo ku xumaan doona, taasoo keeni doonta natiijo xun ama performancega oo noqon doona mid aad u hooseeya. waxaa la yiraahdaa long term stress oo ah macnaheeda inuu waqti dheer qofka hayo. stresska waa stresska xun calaamadiisa iyo waxa lagu garan og yahay. wuxuu qofka calaamado ahaan u dareemi karaa inuu madaxa aad u xanuuno, hurdada inay khalkhal uu ka galo, ay ku dhacdo hurdo la'aan. waxaa kaloo lagu arki karaa inuu miisaankiisa uu isbeddel ku yimaado, cabsi badan, xanuun oo aad u dareemo, iyo pressurekiisa ama cadaadiskii dhiigiisa oo aad kor ugu kaca. waxyaalaha marka keeni kara qofkan ku keeni kara inuu stresskaas xun uu helo waxaa ka mid ah inuu xiriirka qofka uu ka xun yahay. xiriirkaas xiriir dhow ha noqdo ama xiriirka fog ha noqdeba, xiriirka uu ka foga khalkhal kaga yimaado waxay ku keeni kartaa stresska xun. lacagta oo dhibaato uu kala kulmo, shaqada uu dhibaato kala kulmo, caafimaad darro oo uusan rajaynayn in dawo laga heli doono sida kansarka oo kale, iyo xanuunada maanka ama maskaxda ku dhaca, intaba waxay ku keeni karaan qofka stresska xun. waxaa ka mid ah taas oo sii raacda sinaan la'aanta bulshada dhexdeeda ka dhex jirta, gaar ahaan dadka aadka loo fuquuqo kale waxay heli karaan stresska xun. khasaaro qofka uu la kulmo oo si degdeg ah weliba uu la kulmo, khasaarahaasi ha noqdo qof uu jeclaa oo aad ugu dhowaa oo yacni si waayo, ama nooc kastoo khasaaro u yaqaanaba qofkaas hadduu khasaaro la kulmo waxay ku keeni kartaa stresska xun. labadaba marka la isku daro, stresska wanaagsan iyo stresska xun, labadaba waxaa la yiraahdaa waxaa qofka jirkiisa oo bini'aadamka u soo deynayaa hormoneskaas oo ah adrenaline ama cortisol loo yaqaano, ama stress hormones, kuwaasoo carinaya ama ka shaqeynaya sidii ay u keeni lahaayeen calaamado oo qofka uu dareemi lahaa. waxaa calaamadaha dareemaya waxaa ka mid ah qofka oo caloosha huri doonta sidii inay bahal uu ku dhex socdo oo kale. waxaa iyadana ka mid ah in mathalan wadan garaac badan uu qofka dareemi doono,
calaacalaha oo dhidid ka imaan doono. Gabagabadii waxaan rabaa muuqaalka inaan kusoo gabagabeeyo waxa diiqada wanaagsan ama stresska wanaagsan looga sooci karo diiqada ama stresska xun waxa weeye waa sida qofka uga falceliyo waxyaalaha stresskaas u yimid ama waxa uu dareemayo. Labadaas ayaa lagaga sooci karaa. waxaan rabaa muuqaalka halkan inaan kusoo fidno intaan muuqaal lamid ah kan ku kulmi doono sidaas nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.